saddexdii subaxnimo laga bilaabo ilaa iyo saacadan hadda idinla hadlayo waxaa kormeer amni ah samaynayo wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba taliyayaal kaleeto dhammaan waxa uu madaxdaasi u kurgalayaan qaabka amniga u sugayaan ciidamada ammaanka loo idmay in ay waxaan ku dhahaayay maalmahan ay sugaan amniga gaar ahaan amniga Muqdisho in aad loo adkeeyo waxaa jiray marka ayaga oo tagay dhammaan meel kasta oo ciidan ay fadhiyeen iyo iskuis kasta oo ciidan u joogay ay ku kormeerayeen sidoo kale maanta waxaa la soo saaray war qoraal ah warkaas oo ku socoto sidan u socodhigan ku socota dhammaan ciidamada qalabka sida ku socota dhammaan ciidamada shirkadaha amniga gaarka ah oo wasiirka amniga oo ra'iisul wasaaraha oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ujeedo wargelin waxaa la idinku wargelinayaa in laga bilaabo 11 September 2016 aanan lagu arki karin askari magaalada Muqdisho dhexdeeda askari hubaysan oo ammaanka askari hubaysan oo aanan ka mid ahayn hay'adaha amniga loo xilsaaray sidoo kale waxaa dhammaan ciidamada shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay lagu wargelinayaa inaysan wax dhaqdhaqaaq ah ka dhex samayn karin caasimadda laga bilaabo 11 September 2016 ilaa shirka madaxda gobolada igad uu ka soo afjarmaayo